siyaasadeed oo isu soo taraya buuxdiisuna tahay in xuquuqdaas laga doodsiiyo muwaadiniinta taasoo hagardaamo ku noqon karta nabadda wadajirka iyo xasiloonida anigu waxaan dhowr jeer oo hore qayb ka ahaa tartanka ururada siyaasadda haddiise aan haray waqtigaas waxaan dugsaday dulqaad iyo inaan xakameeyo tabashadeeda maadaama aan xogaal u ahaa dhibta ay shalay ummadani soo martay iyo duruufaha adag ee ay ku sugan yihiin waxaan aaminsanahay daawadayaal ninkaasi waxaa la yidhaha doctor Gaboose waa mid ka mid ah dhaqaatiirta ugu caansan magaalada Hargeysa iyo guud ahaan Somaliland jilad oo ku qabtay Hargeysa waxa uu ku sheegay ama uu kaga dhawaaqay urur siyaasadeed la yiraahdo Barwaaqo runaanta horta ninka doctorka anagu xurmeeyo wanaag badan u hayna waa markii labaad ee uu tuush cararay weey arrimaha siyaasadda Somaliland waa markii labaad ee uu dhiiqo lagu halagalay mar waxay ahayd wuxuu siyaasadii waa ka baxay waa ka fariistay cibaadadan u jeesanaya ilaahay baan caabudaya waxa uu sheegay hadana waa kan siyaasadda ku soo noqday ninka weyn ee doctorka anagu ma lahayn been buu sheegaya laakiin waa dhacay markan labaad ee uu dhiiqada dhex fariistay waxa weey waxa uu ku dhawaaqay urur siyaasadeed la yiraahdo Barwaaqo malaha doctorku warbaahinta lama socdo waxba ma oga urur siyaasadeedka waxa ku dhawaaqay nin aqoon-yahana oo ka soo jeeda gobolka Awdal tiraba dhowr mar baa urur siyaasadeedkan xaflad iyo barnaamijyadiisa Boorama lagu soo bandhigay taageerayaal fara badan Boorama uu ku soo bandhigay calankiisii sharciyadiisii iyo yani waa urur siyaasadeed ka jira gobolka Awdal waanu kii aanu lahayn gobolku ka jira baan lahayn waa kii aanu lahayn beesha isaaqo dhan ku soo ururaan oo ku xogeenkooga keeshadaan kan lahayn buu maana lahayn wax xanide aan ma garanayn inta Gaboose la yiraahdo meel alla iyo meel ka socdaan ma garanayn haduunan de ogeynay inuu soo weydiiyay hay'ado warkaas ma jiraan mise ma jiro كان إمكان تسير سياسات Barwaaqo iyo calaamadiisa iyo wixii إمكان nigeeyay daawada muuqaalka la shaaray Barwaaqo Soomaali deexa gobolkan laga dhawaaqo waa hada wariyaal waa وانا يا هيد مركي ururka Barwaaqo Democratic Party magaciisa loo soo gaabiyo Barwaaqo lagaga dhawaaqay gudaha magaalada Boorama waxana maalinba maalinta ka dambeysay soo taraysa taageerada loo hayo ururkaas iyo siyaasiyiinta iyo dhaqameedada ururkaasi ku soo biiraya waxana maanta qabsoontay madal kale oo siyaasiyiin mugle iyo dhaqameedo ay ururkaasi ugu soo biireen waxana ugu horeyn siyaasi Umar Daahir Cilmi oo ka dareen celinaya ujeedooyinka ururkan loo aasaasay iyo baahiyaha waqti xaadirkan loo qabo inay ururo siyaasadeed ka furmaan dalka oo hoosta ka xariiqay هوسو عرقي وريجي بقى سافر ayaa ogol in dadku is-abaabul karaan waxa macnaheedu soo aragtaa markaan ugu ma garanayo Gaboose waxa la uu jeedo tan ugu ma garanayo marka walaalayaal waxa weey كفير سشلو بهاي وحول بلاش كمان أحجرو وحول بتوش كلام عرّو وحول بلاش كمان أحياعو يا مركا نكاد توركا عانكا ويله ومضى إلهي إنك حرمتها هي ذات كيلو دوينه إنه دكتور كيسي سجى نقضي وحي كوب دانتان وما قرنايو سياسة وحبة كما قرنايو إن برنامج السياسة ده وحبة كما وجا وحبة بارتان ما سمعينايو مرة حكولية سياسة وخب حي مرة حكولية هو كل حكلا مرة واقعي كل واقعية حكام خوقنا وخاص حقين جينا ويا باش
marka gabooso waxaan leeyahay adeero waxaa wada shiga bax ummadaadii baa ku baahan oo caafimaadkooda waarkii ugu hooseysay ku jira dadka dawey dadka waxaan waxba ka garamaysid marada wadaada doon ma santiin siyaasada kaas barwaaqo waxa ku dhawaaqay aqoonyahan gobolka wadal ka soo jeeda gobolka laga dhawaaqay astaantiisii uu leeyahay taageerayaashiisii uu leeyahay waan ka mid ahay حتى كحيين كي هلا وصل درشلان اللي ما كان ساق كحيون كوجي وصل درشلان أنا ما هو راح حتى بيجي وصفر مرحين ما بدينا على هلا كحيش هذا كلا كحيش سنسمع مرواقو وحسبي قبل خلا كده واقعي وحسبي غير أولادنا يكون مدرسيه مركا لأن كأولادنا يعني قلبي أقول رب الله يحسبي وكذا واقع نجيس هذا وجرا والله على شيء ما أعرف شير جراي ما كان هو جاينك وشير جراي الشيء يسوي شيء هذا المشين